kulanto wacan wanaagsan aqyaar ay ku soo dhawaada warbixinada ugu xiisaha badnaa ee hadalhaynta suuqa kaliibsiga ciyaartoyda fadlan haddii channelka aad ku cusub tahay subscribe gambaleelkan riix si uu ku soo gaaro warbixinada ugu dambeeyay ee sheekooyinka ciyaaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Isbaanishka ayaana markaa xustay waqtiga kan xaadirka inaysan jirin dalab rasmi ah ee ku aadan labada ciyaaryahan Gareth Bale iyo James Rodriguez waxaana la xusayaa in kooxda kubadda cagta Real Madrid ay xilligan diyaar u tahay in gabi ahaanba iska fasaxaan labadaasi ciyaartoy sida ay qorayso jirada marka labadan xidig ee ka soo jeeda dalalka Wales iyo Colombia James Rodriguez iyo Gareth Bale ayaana markaa lagu tirinayaa in ciyaartoyda ka dhaqaaqi doonto garoonka kooxda kubadda cagta Santiago Bernabeu xil ciyaareedkani madaxa isboortiga kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaana markaa xaqiijinaya inaysan jirin dalab rasmi ah waqtiga kan xaadirka ah ee ku aadan labada ciyaaryahan ee Gareth Bale iyo James Rodriguez aysan jirin kaliya waan maqalnaa xiisaha qaar ka mid ah kooxaha kala duwan ee ka dhisan tartamada qaaradaas Yurub oo aad markaa u hadalaya labadaasi ciyaaryahan ee ka tirsan kooxda Real Madrid ee Gareth Bale iyo James Rodriguez balse Real Madrid waxay isticaad u sheegtay inaysan jirin dalab dhab ah oo ay markaa ka dhageysan karaan labada ciyaaryahan ee Bale iyo James Rodriguez kaliya waxaan sugnaa waa dalab rasmi ah ku aadan xidigaasi Bale iyo James Rodriguez Real Madrid ayaana markaa sheegtay in isbedel xooggan ay xilligan ku sameyn doonaan qaar ka mid ah ciyaartoyda ku gaamuray mustaqbalka garoonka Santiago Bernabeu ee kooxda kubadda cagta Real Madrid kooxda kubadda cagta Manchester United ayaana isku heleen doonina ciyaaraankeeda Anton Martial maadaama xilligan kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay bilowday qorshe ay ugu dhaqaaqayso laba ciyaartoy inay ku soo biiriyaan Stadia Old Trafford ee kooxda kubadda cagta Manchester United xil ciyaareedkan ee kooxda kubadda cagta Manchester United kaliya waxa ay bartilmaameed ka dhigatay 5 ciyaartoy ee ka dhex muuqanaya dhowr kooxood ee ka soo jeeda horyaalada qaaradaas Yurub ma jirto ilaa hadda wax natiijo xoogan uu marka uu sameeyay tobraha kooxda kubadda cagta Manchester United macallin Ole Solskjaer balse kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la fahansan yahay in xoogeedii intii ugu badneed ay markaa saareen xidig u dhashay wadankaasi Ingiriiska Sancho ee ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund kaliya waxa la aaminsan yahay Manchester United inay baadi goobeysa mid ka mid ah ciyaartoy ka ciyaara qaybta qadka dhexe iyo xidig markaa ka ciyaari doona qaybta weerarka xil ciyaareedka cusub ee horyaalka wadankaasi Ingiriiska isbedelada xilligan uu damacsan yahay tobraha kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa u muuqan kara in xilligan cadaadis xoogan lagu saarayo in uu la soo wareego ama saxiix la soo sameeyo ciyaaryahan ka ciyaara qaybta weerarka xil ciyaareedka cusub Anton Martial ma ahan xidig isku haleyn kara qaybta weerarka sidaas waxa qaba qaar ka mid ah xubnaha kooxda kubadda cagta ee Manchester United milkiilaha kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaana qarash gareynaya Abdulaziz gaariga 150 milyan oo lacagta geniga waxaana uu ku doonayaa inuu kula soo wareego 3 ciyaaryahan oo markaa uu ku tilmaamay inay isbedel xoogan ay ku soo rigi doonaan mustaqbalka kooxda kubadda cagta ee Chelsea saddexdaas ciyaaryahan ee 150 milyan oo doonaya milkiilaha kooxda kubadda cagta Chelsea waxa kamid ah Ben Chilwell ee ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Leicester City Kai Havertz oo asna u ciyaaraya kooxda Bayer Leverkusen iyo Declan Rice oo markaasna ka tirsan kooxda kubadda cagta ee West Ham United saddexdaas ciyaartoy ayaa kamid ah bartilmaameedka waqtiga kan xaadirka ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea milkiilaha kooxda kubadda cagta Chelsea Roman Abramovich ayaana saddexdaas ciyaartoy min 50 milyan ku qiimeeyay laakiin xidiga ka tirsan kooxda kubadda cagta Leicester City ee Ben Chilwell ayaana markaa qarka u saaran inuu ku biiro gegida Stamford Bridge ee kooxda kubadda cagta Chelsea maadaama ciyaaraankaasi ay kooxda Chelsea ka doonayso inay kula soo wareegto 50 milyan toddobaadkiina uu kooxda ka qaadan doono Abdulaziz gaariga 150 kun oo lacagta geniga 5 sano oo heshiisna u saxiixi doona kooxda kubadda cagta Chelsea laacibka ka tirsan kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen ee Kai Havertz ayaa asna markaa la xusaya inuu u dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta Chelsea waxaana ay kooxda kubadda cagta Chelsea ay rajeynaysaa inay sheekada ciyaaraankaasi ay soo gabagabeen doonaan laacibka kale ka tirsan kooxda kubadda cagta West Ham United ee Declan Rice ayaana markaasna la shaacinaya in 50 milyan ee kooxda kubadda cagta ay Chelsea doonayso inay kula soo wareegto walow Chelsea caqabad xoogan ay markaa kala kulmi doonto dalabka ku aadan xidiga kooxda Bayer Leverkusen ee Kai Havertz oo lagu qiimeeyo Abdulaziz gaariga 90 milyan oo lacagta geniga balse milkiilaha kooxda kubadda cagta Chelsea Roman Abramovich ayaana markaa kalsooni ku qaba adduun dhan 150 milyan in saddexdaas ciyaartoyba ay ku imaan doonaan gegida Stamford Bridge ee kooxda Chelsea tobraha cusub ee kooxda kubadda cagta Barcelona ee Ronald Koeman ayaana markaa kalsooni ku qaba inuu la soo siixan doono xidig u dhashay wadankaasi Holland ee Wijnaldum laacibkan kamid ah xidigaha ugu muhiimsan ee qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee Wijnaldum ayaana markaa la filayaa inuu ku sii jeedi karo u dhaqaaqista Stadia Nou Camp ee kooxda kubadda cagta Barcelona maadaama xiriir aad u wanaagsan ba uu la leeyahay Tobriis iyo xulka qaranka wadankaasi Holland ee Ronald Koeman ayaa dhawaan loo magacaabay hogaanka kooxda kubadda cagta ee Barcelona xil ciyaareedka cusub waxaana natiijo xoogan ay tahay in Barcelona ay xoogeeda ay saarayso ciyaaraankaasi inay ku xoojiso qaybteeda qadka dhexe xidigan Wijnaldum ayaana kamid ah xidigaha waqtiga kan xaadirka sida weyn kaga dhex muuqanaya kooxda kubadda cagta Liverpool Stadiada Anfield
laakiin waxaa wararka qaar ba ay xusayaan in kooxda kubadda cagta Barcelona ay gacanta ay ku soo dhigi karto iyadoo Liverpool ay ka maarmi karto xidigaasi Wijnaldum sababaha la xiriira in Liverpool ay qorsheynayso inay markaa la soo wareegaan xidig u dhashay wadankaasi Isbaanishka Thiago Alcantara ee ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Laacibkan ayaa la filayaa inuu soo dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta Liverpool markuu soo gabagabo tartanka horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League. Saas darteeda Liverpool ayaa gacanteeda ka bixin karto xidigaas u dhashay wadankaasi Holland ee Wijnaldum. Laacibkan ayaa Barcelona markaa kaga bixi kara kaliya inta u dhaxaysa 20 ilaa 25 milyan oo lacagta Euro-ga sida markaa qorshe uu yahay. Laakiin tababaraha kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee Koeman ayaana kalsooni weyn ku qaba in ay la soo siixan doonaan xidigaasi Wijnaldum. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa gabi ahaanba aqbashay in xidig u dhashay wadankaasi Faransiiska ee Alessandro Lacazette uu u dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta Juventus ee horyaalka dalkaasi Talyaaniga. Kooxda Arsenal ayaa markaa loo soo bandhigay xidig ka mid ah ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Juventus sida xidiga Rodrigo, laakiin waxaa la xusayaa in tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Mikel Arteta uu sheegay in waqtigan xaadirka markaa ay ka maarmayaan. Kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus ayaa aad markaa u ceelsanaysa isbedelada ku aadan inay hesho xidig markaa bedeli kara Gonzalo Higuain ayadoo markii hore u dhaqaaqayna xidiga kooxda kubadda cagta Wolves ee Raúl Jiménez. waxaana xilligan la xusiyaa inay qarka u saarantay kooxda kubadda cagta Juventus wada hadalkii ku aadanaa xidig reer Faranse Alessandro Lacazette oo Arsenal markaa cadeysay in ay diyaar u yihiin xidigaasi inay u gacan galiyaan. kooxda ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska Newcastle United ayaa dhinaca kale xustay inay xoojinayaan dalabkoodii ku aadanaa laacibka kooxda kubadda cagta ee Napoli Lozano. ciyaaryahankan ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Napoli Lozano ayaana markaa la xusayaa in kooxda Napoli ay iska fasaxi doonto xil ciyaareedkani maadaama uu kaga soo biiray kooxda kubadda cagta PSV Eindhoven. jirada Corriere dello Sport ayaana markaa xusaysa in kooxda kubadda cagta Napoli ay markaa diyaar u tahay inay wada xaajood la yeeshaan maamulka sare ee kooxda kubadda cagta Newcastle United maadaama aysan awoodi karin qiimaha gaariga 60 milyan oo lacagta Euro-ga oo mushaar ahaan uu ka qaato kooxda kubadda cagta Napoli ayaa caqabad xoogan ba kooxdaasi ku ah. laakiin Newcastle United ayaa markaa la filayaa in ciyaaraankaasi si amaah ay kula wareegi karto xil ciyaareedkani, waana arinta ugu weyn ee kooxda kubadda cagta Newcastle United ay ku qaadan karaan xidigaasi u dhashay wadankaasi Mexico Lozano. sidoo kale laacibkani waxaa la xiriirinayay kooxda kubadda cagta Everton ayana ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska. inta badan waxay kooxda kubadda cagta Napoli ay xaqiijinaysaa waqtiga kan xaadirka in wada hadalo ay la bilaabeen maamulka kooxda kubadda cagta Newcastle United si ay u fasaan xidiga Lozano. tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus Andrea Pirlo ayaana markaa sheegaya in waqtiga kan xaadirka uu diyaar u yahay in Arturo Vidal uu dib ugu soo celin doono kooxda kubadda cagta Juventus. 33 jirkan u dhashay wadankaasi Chile ayaa kamid ah hogaamiyaasha ugu adag qaybta qadka dhexe, waana mishiinkii hore ee kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus. Arturo Vidal ayaa ka dhaqaaqay kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus sanadii 2015 xilligaasi uu ku biiray kooxda kubadda cagta Bayern Munich. laakiin waqtiga kan xaadirka wuxuu kamid yahay dhowrka ciyaartooy ee Barcelona qorsheynaysa inay iska fasaxdo xil ciyaareedkani. Andrea Pirlo ayaa doonaya inuu la kaashado qaar kamid ah xubnaha kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus si ay kaga dhaadhiciyaan ciyaaraankaasi Arturo Vidal inuu dib ugu soo laabtay kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus. haddaba shakhsiyan ciyaaraanka u dhashay wadankaasi Chile Arturo Vidal ayaa aqbalay inuu diyaar u yahay ku soo laabashada kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus, waxaana uu qirayaa in gabi ahaanba ay luntay mustaqbalkiisii kooxda kubadda cagta Barcelona. ciyaaraanka u dhashay wadankaasi Uruguay Luis Suarez ayaana markaa aad ugu careysan hadalhayntii ugu dambeysay ee gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona. waxaana uu leeyahay Suarez, anigu wali waxaan ahay ciyaaraan aad ugu faraxsan mustaqbalka kooxda kubadda cagta Barcelona, laakiin waxaan ka doonayaa madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona Jose Mario inuu u cadeeyo haddii kooxda ay ii baahan tahay iyo haddii kooxda aysan ii baahnayn kadib ayaan go'aansan karaa ayaa laga soo xigtay laacibkani. Suarez ayaa xaqiijinaya in uu haysto xiriiro kala duwan ay la soo sameynayaan dhowr kooxood ee ka dhisan tartamada Europa, Latin America iyo sidoo kale Asia. xidigani Luis Suarez uu dareemaya niyad aad u baahsan ee ka soo gaaraysa gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona. xidigani Luis Suarez ayaana markaa kamid ah xubnaha aysan carabkiisa taawanin tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona Koeman. saas darteeda Suarez ayaa aqbali kara inuu dhageysto dalabkii ugu dambeysay ee ka soo gaarayay laba kooxood ee ka soo jeeda horyaalka wadankaasi Qatar iyo inuu u dhaqaaqo kooxdiisa hore ay ka sii dhawaan markaa dalab ka soo gudbisay. kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa u dhawaaqanaysa labada ciyaaryahan ee Memphis Depay iyo Lautaro Martinez ee u kala ciyaaraya Inter Milan iyo Lyon. saas darteeda waxaa muuqanaysa in xidiga Luis Suarez uusan ku sii nagaadi doonin kooxda kubadda cagta ee Barcelona.
kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ugu dambeyntii kulan la qaateen xubno kamid ah kooxda kubadda cagta ee Napoli horyaalka dalkaasi Talyaaniga sida markaa uu xusiyay saxafiga u dhashay dalkaasi Talyaaniga ee Alvaredo ayaana markaa soo xiganaya in kooxda kubadda cagta Manchester City heshiis shakhsiyad ay markaa la gaartay ciyaaraankan u dhashay wadankaasi Senegal ee Koulibaly laacibkani ayaana aad u xiiseynaya qaar kamid ah kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska balse waxa uu Alvaredo uu leeyahay waxa xilligan kooxda kubadda cagta ee Napoli ay aqbali kartaa inay xiddigaasi Koulibaly u gacan geliso kooxda kubadda cagta Manchester City ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska xiriirkii wanaagsanaaba uu la soo sameeyay kooxda kubadda cagta Napoli toobaraha kooxda Manchester